السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن دعوضيال meel walba oo joogtaanba qodobada aad wararkan ku maqli doontaan waxa kamida dagaalo aad u xoog badan ayaa laga soo sheegayaa wadada B22 ee gobolka Wollo wadagaaladaas oo u dhaxeeya TPLF iyo huwanta ay dawladda federaalka hogaaminayso sidoo kale TPLF ayaa la soo sheegay inay heshay gurmadkii abid ugu badnaa iyadoo ciidamo badan oo TPLF ka tirsan la sheegay inay soo gaadheen gobolka Wollo ee caasimadda DC duleedkeeda sidoo kale shacabka caasimadda gobolka Wollo ee DC ayaa la soo sheegay maalintii labaad inay mudaharaadyo xooggan oo dawladda federaalka looga soo horjeedo halkaas inay ka wadaan qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan aad warkan ku maqli doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 15 bisha 9 2021 haddaynu guda galo wararkeeni oo faahfaahsan dagaalo xooggan ayaa laga soo sheegayaa wadada B22 ee gobolka Wollo wadadan oo wada muhiim u ah dalweynaha Itoobiya ayaa la soo sheegayaa inay dagaalo xooggan oo u dhaxeeya TPLF iyo dawladda federaalka ay halkaas ka socdaan dagaaladan ayaa la soo sheegay inay soo bilowdeen maalinimadii shalayd oo loolanka dagaalku u yahay wadadaasi TPLF ayaa isku dayaysa inay wadada gacanteeda soo gasho ay halka dagaalka ka sii wada furun oo ay dagaalka u marto ay dalweynaha kale Itoobiya ugu talowdana inay halkaas ka hesho hase yeeshee dawladda federaalka iyo huwanta ay hogaaminayso ayaa isku dayaysa wadadaasi inay marna TPLF gacanteeda galin dagaal xooggan oo hubka noocyadiisa kala duwan isku adeegsanaya ayaa wadada ka dhacaya wadadaas isku xidha gobolka Axmaarada iyo caasimadda dalweynaha Itoobiya wadadan oo gobolka Wollo qaybta waqooyiga ka soo gasha ayaa la sheegay halkaas inay isku horfadhiyaan ciidamo badan TPLF ayaa hubka ugu badnaa halkaas ku daabulaysa iyadoo sheegaysa in wadada qarka u saaran tahay inay gacanteeda soo gasho sidoo kale TPLF ayaa waxa ay sheegtay inay laba magaalo oo maalmo hore laga qabsaday ay dib u laga qabsaday waa sida magaalada Debrecen iyo magaalada loo yaqaan Filaqi dagaaladan xooggan ee ka socda duleedka magaalada DC ayaa la garanayn goorta ay soo afjarmi doonaan dagaalka gobolka Axmaarada ayaa qaatay bishii saddexaad maadaama ay TPLF waqtigii ay dib u soo qabsatay gobolka Tigray ay isla waqtiyadii u talowday labada gobol ee sida gobolka Axmaarada iyo gobolka Canfarta dawladda federaalka Itoobiya ayaa ciidamada ugu badnay tababar u soo xidhay iyadoo sheegaysa inay ciidankaasi diyaar u yihiin inay xoreeyaan gobolka Axmaarada dawladda federaalka ayaa muhiim waxa uu ahaa gobolweynaha Axmaarada oo halkaas haday TPLF gacanta ku dhigto ay noqon doonto labadii qowmiyadeed ee dalweynaha Itoobiya inta badan boqortooyada ka soo hanjiray dalka Itoobiya inay isku siyaasad noqdaan ama fikradda ay ka heshiyaan TPLF ayaa isku dayaysa inay gabi ahaanba qabsato gobolka Axmaarada siyaasiyiinta Axmaaradana u gacan hadinaysa ayagoo ku sheegaya Oromo oo siyaasad aqoonin ayaa dalkeena qabsatay hase yeeshee Axmaarada ayaa eegaysa waqtigan maadaama jaanis tahay Axmaaraduna waqti badan ay ka maqnay siyaasadda dalka ugu sareysa inay hadda waqtigan tahay waqtigii Axmaarada jaanis la siin lahaa shacabka Oromada ayaa waqtigii Dr. Abiy Ahmed loo doortay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa ku eedeynayay inuu u janjeero dhanka qowmiyadda Axmaarada ayagoo warbaahinta Oromadana la isla xamaray Abiy Ahmed ma aha Orom dhalada laakiin waa Orom iyo Axmaar iska dhalaha xaga kalena qowmiyadda Axmaarada ay u janjeeraa qowmiyadda Axmaarada ayaa qaabka ay u difaacayso ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa moodaa inuu ka soo jeedo qowmiyadooda hase yeeshee Dr. Abiy Ahmed sida la wada ogsoon yahay waa nin Orom ah iyadoo raabtigii lagu sheegay inay yihiin Axmaarada ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa ku loolantamaya inuu dalweynaha Itoobiya in badan si maamulo asagoo markasta ku dhaha warbaahintana mariya inuu dalweynaha Itoobiya ugaraan 10 sano oo cidna kala gorgortamaynin siyaasadda dalka Itoobiyana uu asagu hogaamin doono cid kasta oo isku dayda inay ka faramaroojiso siyaasadana uu dagaal weyn la gali doono waqtigii uu TPLF weeraray ilaa iyo waqtigan maanta dagaalkii ma joogsan Abiy Ahmed karaarka muusiq qaadanaya ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa taageero badan raadsanaya uu kaga hortago TPLF ayaa lagu eedeeyaa inay dagaaladan xooggan ay wadaan ay taageero ka helayaan sida dalalka reer galbeedka hase yeeshee Abiy Ahmed ayaa qaaradani Afrika iyo ilaa qaarada kaleba u tallaabay isagoo taageero uu Abiy Ahmed
ورئيسل وزراء dalka Itoobiya ayaa taageero badan ka raadsanaya qaaradani Afrika si ay dhaqaalaha u kabaan ciidamada Itoobiya hase yeeshee ciidamada Itoobiya ayaa lagu xantaa inay dagaalka daacad ka ahayn dagaalka ay TPLF kula jiraan inay mar kasta dhanka TPLF u janjeeraan hubka noocyadiisa kala duwan ay u gudbinayaan TPLF oo lagu sheegay inay qoomiyadaha ugu yar dalweynaha Itoobiya ay ka soo jeedo haddana dagaal xoogan kula jirta dalweynaha Itoobiya waqti uu Dr. Abiy Ahmed bilihii hore uu warbaahinta ka hadlayay meel fagaaraha ayaa waxa uu sheegay inaanu heli karno ugu yaraan 1 milyan oo maleeshiyada oo hubayna oo TPLF ka horgeyno hase yeeshee TPLF hadalka Abiy Ahmed waxay ku tilmaantay inuu farxad gelinayo shacabka TPLF iyo ciidamada gaarka ee TPLF ee jidda hore dagaalka kaga jira TPLF ayaa ku macnaysay hadalkii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed 1 milyan ee maleeshiyaanka inay hubka u noo keenayaan maxaa yeelay ciidamadii qaranka ee Itoobiya waanu jabinay gabiyaana cagta aan marinay ciidan cusub oo 6 bilood iyo dhowr bilood lagu tababarayna ma hor istaagi karo mujaahidiinta TPLF waa sida uu afayeenka TPLF u sheegay afayeenka TPLF ayaa waxa uu yiri 1 milyan aad sheegay 100 milyan haday soo diraan cagtaan u marinayna maxaa yeelay ciidankii Itoobiya ee la yaqaaneen anagu soo dhisnay ayaan gabiyaanba cagta marinay soona afjaray sidoo kale TPLF ayaa waxay sheegtay inay qabsatay 2 magaalo hore looga qasbaday usbuuc TPLF ayaa waxay sheegtay in 2 magaalo usbuuc hore laga qabsaday inay dib u qabsatay maalinimadii maanta ahayd TPLF ayaa waxay sheegtay 2 magaalo kala sida Debra Sabade iyo Debra Khilabi inay 2 magaalo gacanteeda soo gashay dagaalkana ay halkaasi ka sii wadi doonto qoomiyadda Axmaarada ayaa ku cabanaysa inay TPLF kicisay qoomiyadihii la deganaa qoomiyadda Axmaaradana dagaalkana ay ka dhigtay dagaal ka socda qoomiyadda Axmaarada dhexdeeda mudaharaadyo waaweyn ayaa laga soo sheegay magaalada gobolka caasimadda Wollo ee Disiya qoomiyadaha ku badan magaaladaasi ayaa sheegay inay dawladda federaalka dagaal aan loo meeldayn ay ka wado gobolkan ayna dawladuna diyaar u hayn inay soo afjarto gobolka ka socda gobolka Wollo shacabka ayaa ku mudaharaaday dawladdu ciidamadeeda hala baxdo maadaama TPLF-na meesha ku sugan tahay sidoo kale dadka aqoon-yahanada ayaa waka mudaharaadyada inay yihiin mudaharaadyada dawladda Itoobiya lagu xagar daacinayo TPLF-na lagu gacan haadinayo shacabka ayaa ku qaylay dawladda federaalka hadayna dagaalka daacad ka ahayn gobolkan nabad ay ka rabin oo rabta meel inuu noqdo lagu hardamo inuu shacabkana uu saa ku sii jiri karin hadii kale qoryaha aan qaadanayna meesha ay dantu nagu jirtana waan raacaynaa sidoo kale TPLF ayaa warbaahinta waxay ku soo bandhigtay 3 nin oo qoriga wata ay Soomaalidu u taqaan AK47ka oo la dagaalamaysa ciidamada taangiye wata kadibna orod ku fulaysa taangiyada ayadoo la arkay weeraan ciidamo kumanaan oo kala cararaya oo taangiyadana iska tuuraya oo ka cararaya sidoo kale wiilashan watay qoriga loo yaqaan AK47ka ayaa ku garaacay gaariga ay taangiyadu saarayeen sidoo kale ciidamada federaalka Itoobiya ayaa la sheegay inay iskaga soo baxeen jidda hore ee dagaalka TPLF-na ay ku sii durkayso dhul ballaaran oo badan iyadoo TPLF ayeenkeedu mar waxa la hadlayay sheegay inuu dagaalkii kala baxa ka socdo dalweynaha Itoobiya tan iyo kulanti dambe waan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh